بسم الله الرحمن الرحيم غيرت قيمها بدن ميل walba joogtaan soo dhawaada sidaan hore kugu sheegay babriyahan dalka Turkiga waxa ka jiray hadal hayn aad u far badan oo ku saabsan dhanka sharciyada marka la leeyahay iyo tii ugu dambeysay 5 maalin ka hor ahayd 16 bishan in ganacsato Soomaaliyeed magaalada Ankara lagu xiray maantana la soo daayay wararka qaar oo ay sheegayaan in dadkaasi la musaafirin doono ama maanta marka la soo daayo loo qabtay ilaa iyo maxaan ku yiraahdaa 7 maalin in loo qabtay muddo ku siman 7 cisho 30 cisho ay raahday in loo qabtay kadibna la musaafirin doono ayagoo 7 maalin ku dhawaad xirnaa arrimahaas ayaan rabaa marka barnaamijkan dad badan ayaa iga soo weydiiyay su'aalo oo ku saabsan arrimahaas waxa ka jira iyo wararkan sheegaya in dadkaasi la musaafirinayo iyo wixii la mid ah iyo in sharciyada dadka iqaamadaha wadankan ku haysta loo diidayo iyo arrimaha ganacsiga waxyaalo fara badan iyo sumcadda Soomaalida ee wadankan ay ku leedahay hoos miyay nusqaan miya ku yimid mise sidii hore ama meeshii hore ay joogtay ay xaaladu tahay arrimahaas ayaan rabaa barnaamijkan kooban oo muddo kooban ama waqti kooban aan ku jiri doono runtii aan kaga hadli doono anigoo magaalo kale markaasi safar ku joogo sidaad ogtihiin Soomaalida wadankan waxay ku leeyihiin sumcad weyn ayay ku lahaayeen markii xiriirka labada dal uu soo cusboonaaday xilligii madaxweyne Sheekh Shariif madaxweyne Xasan Sheekhna waa kasii wanaagsanaaday madaxweyne Farmaajona oo xilligan waqtigiisu ama uu joogo waqtigan la joogana meel fiican ayuu sii gaaray madaxdaas oo dhan markii wadankan xiriirka laga hadlay labada dal madaxweyne walba wuxuu wadanka kaga hadlayay ama uu kala hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed ay meel wanaagsan ama si gaar ah loogu maamuusi lahaa ama si wanaagsan wadankan sumcad ay ku yeelan lahaayeen marka laga hadlayo arrimaha Soomaalida wadankan maalgashi far badan ay wadanka ku sameysay hadii laga hadlayo magaalada Ankara hadii laga hadlayo magaalada Istanbul iyo guud ahaan wadankan haba ugu badnaatay magaalada Istanbul oo business far badan Soomaalida ay ku leeyihiin hadii noqon lahayd maqaayado hadii noqon lahayd goobo ganacsi ama dukaano iyo wixii la mid ah taasi waxaan ku leenahay sumcad weyn ayaan ku leenahay Istanbul marka laga hadlayo Soomaaliya waxa kaga badan ajaanibta kala kaga badan sida Carabaha oo kale marka aan ka hadlayno Iraq Libya Yemen Tunisia Algeria kadib ay Soomaali soo galaysaa Soomaaliya lagu ma tilmaamo dadka wadanka ku nool ama Soomaalida wadankan dawladda Turkiga muu ictiraafsana ama ma aaminsan inay yihiin dad dib wada sumcaddii aan lahayn ayaan wali Soomaalida ay ka leeyihiin wadankan wali waa la ixtiraamaa stage ama heer in la noco la gaaray wali lama gaarin wadankan qofka waxa lagu nacaa laba shay ayaa lagu nacaa waa midda koobaad inuu dhibaato ku yahay amniga wadanka labo inuu drugs iyo wixii la midka ah inuu yaani uu ku lug leeyahay ama uu ka ganacsado labada shay wadankan runtii dadka lagu nacaa Soomaalidan labadaas way ka madax banaantahay dad afaarahaasi gala ma aha inkastoo ay jiraan rag dhalinyaro oo muddooyinkan dambe ama bilahan dambe soo kordhay oo qamriga iyo waxyaalaha la midka ah inay isticmaalaan la arkayo habeenkii saqda dhexe magaalada ku dhacaya kuwaasna ma aha tiro badan ma aha waa tiro kooban waxay gelin la sameeyeen way ka waantoobeen marka heerka aan ka joogno wadankan wali sumcaddii ayaan ku leenahay way jiraan caqabado fara badan oo ay naga tabanayaan dadka wadankan u dhashay oo naga tabanayaan way jiraan laakiin waxa ka badan dadka wadankan u dhashay caqabadaha ama dhibaatooyinka ay kala kulmaan ajaanibta kala ka badan Soomaalida oo kaliya waxa laga yaabaa in laga cawdo arrimaha ku saabsan taariibta iyo arrimahan kale ay ku saabsan maxaan ku yiraahdaa qaylada iyo buuqa iyo xilliyada dambe la soconayo taasna waxay gelin badan la sameeyay ayadana xogaa hoos u dhac ayaa ku yimid marka dhanka sumcadda wadankan heerkaasaan ka joognaa marka aad u mahadsan yihiin marka dadkii qiimaha badnaa ee barnaamijkan ama arrimahaasi waxay gelinta ka qayb qaatay ee jooga magaalooyinka Istanbul Ankara oo ay ugu horeeyaan culimada community-ga iyo safaaradda intaba markaan ka hadlayno arrimaha ganacsiga dada jiray hadeertan 5 maalin ka hor oo ganacsato ah oo Ankara degan halkaasi ganacsigoodii la xiray ayagana xabsi la dhigay galabta la soo daayay amarna lagu siiyay muddo 30 cisho ah gudahooda inay wadanka ay ka baxaan dadka la soo daayay qaarkood waa la xiriir ayaa la sameeyay waxay ii sheegeen in lagu amray inay wadanka ka baxaan ay soo galaan
business koodii marka ay si amba qaadan ay hore u sii wataan dadkaas maxaa lagu haystaa kow waxyaala lagu haysto ma aha in business koodii uusan sharciyeysnayn goobaha ganacsiga ee Soomaalida ay ku leedahay wadankan kulligood waa sharciyeysan dawladda hoose way maraan way soo sharciyeeyaan dokumentiga sharciga ay meesha ku furteen way baxshaan canshuurta laga rabay way bixiyaan laakiin hal caqabad ayaa Soomaalida haysata caqabada Soomaalida haysata waxa kamid ah in business kale iska furo la sharciyeeyo dawladda hoose la tago in la soo sharciyeeyo la furo darbiga lagu dhagsado business sidii uu ku socdo laakiin saa waa ka duwan yahay in la qabsado qof xisaabi inay qabsadaan lawyer ay qabsadaan sharciga wadanka loo sharxo sidoo yahay dad waxa jiro wadankan ku imaanaya dalxiis ku imaanayo wuxuu furanayaa meel ganacsi uu furanayaa uu sharciyeynaya marka wuxuu aaminsan yahay intaas ba haduu sameeyay wixii inay u saxan yihiin marka sidaas ma aha hadda dadkan maxaa lagu qabsaday kow markaad samaysatid goob oo sharci ah ama maqaayad furo sharciyay dawladda hoose ka soo sharciyay oo waxaad haysataa muddo sanadkaas gudihiisa waxa laga rabaa markuu ku dhamaado inaad sifadii sharciga dawladda aad marto maxaa kamid ah sifada sharciga ama dadka hadda la xiray lagu qabsaday sanadkaas gudihiisa markuu sanadka ku dhamaado waxa laga rabaa work permit inaad dalbatid ruqsad shaqo inaad dalbatid iqaamadaada markuu isbedelaysa marka work permit marka dalbato in sharciyadii aad meesha ku furneed aad dalxiis aad ku joogto laakiin inaad dalbato dawladda aad ka dalbato work permit marka dalbato maxaa laga rabaa marka inaad shaqaalaysiiso niman Turki inaad shaqaalaysiiso oo 5 ruux shaqaalaysiiso insurance-gooda inaad bixiso iyo wixii la midka intaas marka sameysay business-kaaga marka uu ku sharciyeysan yahay dhalinyaradan marka businesska magaalada Ankara ku haysatay isugu jiray maqaayadaha isugu jiray timajaraha dukaanada isugu jiray xawaaladaha isugu jiray dhammaan runtii ma ahayn wax sifadaas maray marka waxay kaliftay time-kii loogu talagalay inay dhaaftay digniino fara badan markaasi sida ay mas'uuliyiin safaaradda ka tirsan ay xaqiijeen digniino badan dawladda ay u soo jeedisay loo digay kadibna waqtiga markuu dhamaado meesha la work permit inay ka dalbadaan inaysan ka dalban taasina marka inay kaliftay marka in albaabada la isugu dhufto ayagana la xiro la ganaaxo amar lagu sii wadanka inay 30 cisho gudahooda ay kaga baxaan kadibna la yiraahdo in ay ganacsigooda markaasi ay dib ay u sii bilaadaan arinta maanta dhacday arinta ka dhacday Ankara Istanbul way ka dhacday maalmo hore ama dhowr bilood ka hore ay ka dhacday goobo ganacsi la xiray laakiin sifadii sharciga ee mareen dhalinyaradu way sharciyeeyeen business-koodii si wanaagsan u socdaa inkastoo aan la ogeyn hadda kadib wixii imaan doona marka dad fara badan ayaa jiro marka wadankan u imaanaysa inay maalgashi ay sameystaan oo dibadaha ka imaanaya Soomaaliya ka imaanaya marka sharcigu ma aha inaad meel qabsato lacag $100,000 aad geliso dawladda hoose ka soo sharciyeyso oo kaliya kuma koobna waxa laga rabaa marka sanad kadib markii aad intaas aad marsiiso inaad dalbato work permit waa number 1 inaad work permit haysato ruqsad shaqo inaad dalbatida laga rabaa oo aad lawyer qabsato aad xisaabiye aad leedahay canshuurta wadankan laga rabo inaad iska bixisid lawyerkan shuruucda ganacsiga wadanka inuu ku sharxo dhibaatooyin fara badan ku imaan kara marka in meel la furto warqad lagu dhajiyo kaliya marka ma aha marka dadka marka waxa la rabaa in la iska socdo ma aha wadankan wuxuu leeyahay lawyers leeyihiin xafiisyo u furan inaad la xiriirto English ku hadlaan Carabi ku hadlaan waxa soo dhan marka sifooyinkaas marka qofku inuu mari karo la rabaa marka hadii ay noqoto meel iska furanaya saasan dawladdu waxay ku siinaysaa marka hadda furato kuma dhahayso 5 qof sharciyay ama inay ku shaqo galaan waajib ma laakiin sanad lagu siinaya fursad 7 bilood ilaa sanad ugu badnaan intaas marka ay ku siiso oo sanadkaas ay shaqeysatid work permit marka laga rabo inaad dalbato marka dalbatidna marka sifooyinkii kala maraysa marka inaad Turkish shaqaalaysiiso inaad maxaan ku iraahdaa insurance-gooda inaad bixiso sidaas marka business-kaaga inuu ku socdaa la rabaa laakiin haday noqoto sida maanta dhacday waa problem weey marka dadka Soomaaliyeed marka waxa la gudboon ama inay sameeyaan arimaha noocaas oo kala inay xoog ay saaraan meesha anagu dalkan sumcada lagu leeyahay Soomaalida sumcad weyn ku leeyihiin wadankan manihin sida Carabaha kale wadamada Carabaha dadka community-da kala jooga sida loo nacay Soomaaliya ma Soomaalida sumcadooda waliba meel wanaagsan ay ka jirtaa meel wanaagsan ay taagan tahay maxaan ku iraahdaa fiisooyin la soo siiya iqaamadaha dalbadaan iqaamadaha la siiya waxyaalo lamid ah taas marka intaasan kaga gudbaya dadkii la xirxiray oo la soo daayay ayaga kulli ka hadli doona lawyer-koodii safaaradana safiirkana kulli isagana arimahaas waa uu ka hadlay marka arinta sharciyeynta marka work permit number 1 taas qofka inuu diirada saaro meel furo
وشقيسة كرتا سند مركات شقيسته إن المركات دلبتيد ووك بريميت كمركا ولازما ووح شرعي أهوي مركا لويرنا دلبو حسابينا دلبو لعقر يا قاضنا لعقتي يا لبقين يباتدك الكوسو جاري ساكبل هذا اللي يرضى حمقلا العكس سيالكم العكون يشنبه $1 لوجنا على قفكي qaar koodna waxay ii sheegeen in markay baxaan ay soo galayaan kadibna work permit ay dalbanayaan ganacsigoodna maalmo kadibna dib loo furi doono magaalada Ankara sida ay dhalinyarada qaar oo baanta la soo daayay oo goordho aan la hadlay iyo xaqiijiyeen waxa ku soo haray arinta kale oo ah iqaamadaha dadka loo diidayo rajagtiga la siinayo la leeyahay kuma siinino qaladaad far badan ka jira dhalinyarada xafiisyo furatay lacag badan ay ka qaadanayaan si qaldan wax loogu xareenayo caafimaad aan ku imaanaya dalxiis ay xareynaysa rajagti aan qaadanaya dalxiis aan ku imaanaya caafimaad ay xareynaysa rajagti la siinaya ina sifada ina raaco waa caafimaad ma ku imid iyo xarey wax caafimaad ahaan igu xarey isbitaalka aan ka imid warqad iga soo qaad dokumentiga igu lifaaq balan caafimaad inaan caafimaad ahaan igu ku imid emoji dokumentiga sidaas ku xarey kadibna iqaamadaada si sharci ah oo nadiif ah kugu soo baxaysa rajagtadii lagu siiyo xafiis jiro oo gooji darisiga ku yaal xarmooda weyn Istanbul iyo meelaha kale tag xafiiska u dacwo waxa tiraahdaa waay rajagta liisi booliska ka baqin tag meesha dacwo marka dacwooto xaqad u leedahay inaad dacwooto lawyer qabso tag u dacwo sababta rajagta lagu sii sheeg inaad tiraahdo xaqa u leedahay laakiin adiga wax barasho ku yimid ayaa marka musuqmaasuqa sameynaysa dalxiis lagu xareynaya lacaga laga qaadanaya dalxiis lagu xareeyo dalxiis hadii lagu xareeyo wax barasho ku yimid rajagta qaadanaysa waa lagu diiday wadanka Toobir uga bax lagu leeyahay caafimaad ku imaanaysa dalxiis lagu xareynaya waa diidmo waay marka waxa laga rabaa waxyaalaha meelaha la rabo in xoog la saaro ee la iska fiiriyo waa in dadka wadanka kaaga soo horeeyay weydii waxa arkaysa qof caafimaad u imaanaya ama iqaamo xareysanaya asagoo number telephone haysan guri degnayn oo xareysanaya iqaamad ayuu xareysanaya iqaamadii markuu xareysto numberka waxa lagu qorayaa qof kale lagu qorayaa numberkaas waxa kugu soo dhacayo dhaqdhaqaaqaaga in iqaamadii lagu ogolaaday balantaadii wax walba kugu soo dhacay qof kale markuu wuxuu dhiibtay qofkii kale uu dayici karaa xilliga balantaad kuma soo dhicin ninkiin wixii aad ka xareysatay muusan kuu sheegin marka wixii marka leedaa galayo balantaadu kuu soo dhacday ka qarin karaa wixii way kugu dhaafayaan hadda balantaad hal maalin ay dhaaftana marka mar dambana waa sida kugu dhaafto waa arimahaasna aad inaad macna dadka imaanaya inay uga fiijignaadaan haddaad caafimaad u timid isbitaalkaad u timid wadanka Turkiga isbitaalka warqad ka soo qaado maalintaad balanta leedahay dokumentiyadaada afartaada sawir cashuurtii dawladda soo bixi maxaan ku yiraahdaa bahalkii warqadda receiptka lacagta ku soo bixisay ku xaray adresska guriga aad degan tahay geli nootar garay dokumentigaas xareyso waa waxaan $50 dhameen $100 dhameen waa qaad balanta meeshaad ku leedahay gey haddaadan geynin marka caqabada kaaga imaanaysa caqabad weyn ayaa kaaga imaanaysa wadanka systemkiisa waa system toosan laalaab iyo galabgalabna xoogaa qofka markuu sameeyo looma abiyeelayo rajagta la siinaya diidma la siinaya diidma marka lagu siiyo marka maxaa kula gudboon inaad marka lagu yiraahdo diidma lagu siiyo wadanka inaad kaga baxdo way 10 cisho marka lagu yiraahdo ama 15 maalin wadanka kaga bax marka lagu yiraahdo inaad iska baxdid ma xaq waxa uu leedahay lawyer qabsanaysa dacwad furanaysa dad badan dacwad furtay oo diidma la sii dacwad fur iqaamadooda qaatay way jiraan oo dib loogu soo celiyo oo guriyooda loogu keenay marka taana waa priority in qofku inuu muhiimad gaar ah inuu siiyo waa laga maarmaan fadlan wadanka marka soo gashid oo aad joogto intaadan bil inaysan kugu dhalan 20 cisho gudahood intaad haysato iqaamada dalbo laakiin waqtiga duu ku dhaafo timekaaga limit waayo haduu waqtigaaga dhaafan iqaamadaada aad dalbatid rajagtigaaga marka lagu siinaya marka iqaamadaha oo wadanka laga bixiyo wali waa systematic waa wax walba si loogu talagalay ay u socdaan qofkii wax diido qofkii rajagta la si ama diidma la si asaga isqalday dhalinyaro badan arkaysa rajagta liisi ku leeyahay marka dokumentigiisa aad fiiriso isagoo dalxiis u yimid caafimaad loo xareeyay qaladka meeshu ku jira asagoo dokumentiga uu xareeyay wuxuu ka tagay insurance uu ka tagay bila insurance waa lagu soo celiyay wax lagu leeyahay muddo bila haysata insurance ka keen insurance marka inaad dib aad u dalbato aad ku xareyso 10ka bishaas gudahooda inaad insurance aad feelka wixii ka dhiman dhamaystirto aad geysid waay okay caruura leedahay caruurtii Soomaaliya ay ku dhasheen halkan keentay aabiha maqan
warqadda kafiilka aabaha inuu soo cadeeyo waay aabaha inuu warqadda gobolka banaadir inuu kasoo qoro ama degmada uu degan yahay inuu kasoo qoro wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya inuu geeyo soo cadeeyaan lagu soo diro safaaradda inay geysito Soomaaliya ay ku soo cadeyso wasaaradda arrimaha dibadda la geeyo Turkiga soo cadeyso kadib warqadaas waxa geenaysa gooji dareysiga meeshii iqaamadaha ka xaray lahayd ilmaha sidaas sharciga ku qaadanayaan marka lagu leeyahay hebel sharciga loo diiday ama caruurtii sharciga loo diiday waa conflict badan ka taagan buuq badan ka taagan oo Soomaalida dhexdooda niman dhalinyaraha magaalada degan xafiisyo furteen dadka wax raban u sheegayaan xitaa ma jiraan consultancy tala ma siinayaan ma dhahayaan number soo furo numberkaaga wixii kugu xareyn ama wadadan sharciga waa sidaan mar ma dhahayaan dhankaas marka problemkaas ka jira laakiin qof oo iska xareysanay oo diidmo iska soo siinayo totally wax jira ma diidmada sabab ay ku timaadaa sababta ku timaado marka qofku waxa la rabaa marka wixii inuu asaga iska sax loo baahan yahay laakiin hadaan adiga iska saxin cid kale yani ha dhaliilin documentiga marka lagu siiyo iska hubi documentiga lagu siiyo dadkii wadanka kaaga soo horeeyay la tasho samay tag dhalinyaro wadanka wax ku barataa jirto joogo dad muddo degnaa jiro la tasho waxana sameeyay saxba taas waa ayadana waa waxa jira waa laakiin warar badan oo soo duulaya maqlaay oo dad badan isoo weydiiyay oranay waa isku diiday iqaamadihii maxaa ka jira ilaa hadda ma maqal dad way xareystaan waa usoo dhacdaa balamaha fiiri wararka haddii la leeyahay ama Soomaaliya wax loo diiday ama sharciga migrationka ama goojida rasiga iqaamadaha bixiya ayaa wax laga bedel marka la dhaho war official soo baxay oo dawladda ka soo baxay waa la shaacinaya warkaas arki lahayn laakiin ilaa hadda ma jiro war cadeynay la leeyahay Soomaalida waxa loo diiday sharciga ma jiro totally warkaas meel uu ku qoran yahay ilaa hadda ma jiro marka dadka Soomaalida sharcigooda si caadi u dalbanayaan waxa u jeeday hooyooyin fara badan oo wareersan oo dibadaha ka yimid sharcigii caruurtii lagu dhibayo fadlan aabaha waxa laga rabaa caruurta uu dhalay inuu kafiil u soo qoro hooyada telefonkii wacayaan ma ka qabanayaan waxay ka qabanayaan malaha telefoonadii ma qabanayaan marka waalidiinta ama odayaasha waxa la rabaa dumarka hooyooyinka ee halkan keenay caruurta inay warqadaha kafiilka ay u soo cadeeyaan safaaradda ay wadanka ay ku leeyihiin ama wadanka la ka yimaada inay documentiga ay soo qoraan ay keenaan in markii halkan ay soo degto hooyada ama family ay soo degaan in loo dhameeyo sharciga hooyada waxa arkaysa kaligeeda caruur badan jiidaysa iska socota arkaysa oo meel walba tagaysa ku rafaasan arkaysa fadlan aabo haddii family halkan ku joogaan ama caruur ay ku joogto ama xaaska soo dejiso fadlan adigoo documentiga sharciga caruurta adoo la dhameyn ha ka tagin marka documentiga la dhamayso la dhamay wadankan sharci ma siiyo caruur iyo hooyo isla socota kaligooda lama siinay waa in cadeen la helaa cadeynta marka la keeno qof walbana safaaradiis inuu ka soo sharciyeeyaa taasina waa issue kala waay marka aad u muhiimsan marka waxa arkaysaa hooyo iyo caruur marka la keenayo wadanka la soo dejinay odayga waa tagaya hooyadii marka sharciga xareysanaysaa way rafaadaysaa meel wax ka bilaado ma taqaan odaygii waxa leeyahay warqadii kafiilka keen inuu caruurtan dhalay odayga soo caday waxyaalo badan ay jiro taasna waa mid kale way ayada naftirkeeda marka in laga warhayo aad iyo aad muhiim u tahay intan iyo waliba arimahaasi iyo kuwa kale badan aan hore u soo sheegay marka dadka Soomaaliyeed inay ilgaara u yeeshaan badana dadka la qaldan waxa weeye dadka cusub wadanka imaanaya badana la qaldaya oo waxyaalo badan loo sheegay arinta dhalinyarada wadanka dhalinyaro badan ayaa ku nool kulligoodna sabab ay wadanka u joogaan ama u yimaadaan lama yaqaan qaar la garay waxbarasho u yimaadaan la garay qaarna waxay u yimaadaan ganacsi qaarna family la degan yihiin laakiin intoodii badan Istanbul kuwa dadka ku nool waa mid ayagoo tahriib aadaya waa tahriibayaan dad waxa arkaysan berdhiwi Serbia meel la mid ah ku dhibaataysan waxaasay ka shaqeynayna waa dhalinyaro kale oo halkan ku nool qaarkood meelaha ka yimid dhalinyaradaasi markay waxbarasho u yimaadaan tashkiiliya oo tahriib iyo balaayo u dira dadkaasi qaarkood sharciga ka yaala wadanka qofkii tahriib lagu soo qabto waxa sharci ka yaal horna aad u maqasheen dad fara badan in la musaafuriyo qofkii sharci la soo qabto tahriib ah lagu soo qabto waxa go'aan lagu gaar in la musaafuriyo oo wadankii lagu celiyo warqadda go home kana markaas ay safaaraddu markaas ay qorto taasna waa meeshaas marka waxa la rabaa marka qof walbo wadankan joogo inuu marka ilaaliyo sharciga wadankan inuu aad u ilaaliyo oo ka feejignaado aad muhiim u tahay waxyaalaha ay nagu dhibsadeen marka dadyowga ama dadka Turkiga number 1
guriyan degannahay waa kireysanay sanadaan saxiixnay sanadkaas saxiixno waxaan saxiixnay heshiis ah sanad inaan ku degnaanayno 3 qofood waa saxiixnaa markaan saxiixno waxaa lagu arkaya guriga intii aan saxiixno ma ahay in ka badan saq dhaxa la qeylanayaa buuq badanaa ka taagan dhibaato fara badanaa ka taagan gurigii jaam daaqadaha la furaya dadkana laba saaxiibinimo dad hurdo waa suuxiina 5 ay kacayaan masigiisay kacayaan shaqi aadaan Soomaalina 5 subaxnimo 5 galabnimo soo tuusayaan marka laba meel isla gelaysa maaha marka waxa la rabaa dariska waa xaq dhoora marka inaad dariska xaq dhoorto xaqay kugu leeyahay dariska inaad ilaaliso waa qodob diiniyan ah marka dariska xaq dhoor late time xilida markaa soconaysana guriga buildingka dhor gambaleelo albaabka leeyahay ha saga nasiibsanin gambaleelka doonta iska garaacaysa dad jiifa kicinaysa qaar waxa ku qoran ba caruura hurdiha garaacin albaabka hore marka waa soo istaagay albaabka gurigii lambarkii ma yaqaan qofkii kale telefoonka ka wacay oo ka qaweyna waxa leedahay lambar ku nasiibso cidaas marka naga furo albaabkiisa gudaha u sii garaacayna lambar iska garaacaya dhor jara arkay marka taa naftirkeeda in laga feejignaado ayadana waa very important oo arin aad iyo aad runtii muhiim ah arimahaasi dhalinyaradana maxaan ku yiraahdaa waxa arkaysaa marka la gaaro kowda habeenimo dhalinyaro rag iyo dumar ah oo waaga u bariyay oo meelaha maqaayadaha biibitooyinka meelo kale runtii tagaya waxyaalo maandooriyaal iyo maxaan ku yiraahdaa baashan shiishada la yiraahdo publica ku isticmaalay arkaysaa taa naftirkeeda waalidiinta waxaan leeyahay ka war haaya caruurta aad soo direysaan ka war haaya caruurta aad soo direysaan wiilal iyo gabdhaba ka war haaya ama imaan wadanka la soco xaalkoodii ma garateen marka taana way jiraan late time waxa arkaysaa waxaan fadhinaa xadiiqooyinaan fadhinaa gardens aan fadhinaa meelo lamid aan fadhinaa buuq fara badanaa taagan darisaa jiifo meeshaan ku qeylinayna waa iscerceersanaynaa buuqa taagan wadadii problem badan runtii jiro laakiin weli sumcadda aan leenahay oo meesha aan sumcadeena ay taagan tahay weli meel wanaagsan waaye intana la soo dhaweynayo inta iqaamadna la siinayo inta gurina laga kareenayo inta maxaan ku iraahdaa aan nala faquuqayn cunsuri aysan jirin intaasoo dhan markay jiraan waxa waaye weli sumcada lagu hayaa wadamo fara badan waxa la yiri iqaamada lama siiyo dalal fara badan waxaan jiraan fiisa la siin oo wadankan ka mamnuucta oo booliskii ayaga aragti ka dhaxaysa kulligii waa ogtay dadka Turkiga ku nool way la socdaan aragti ka dhaxaysa booliskii dadkaas kuwa camal marka inaan noqono lama rabo marka waxa la rabaa waxaasoo dhan inaan ka feejignaana loo baahan yahay arimahaasoo idil marka waxa la rabaa in fiiro gaar ah marka inaan u yeelano dadka wax bartay dadka wadanka joogay oo muddada joogay dadka imaanaya wax fahansiya wax u sheega in wax loo sheego wax la fahansiyo oo la yiraahdo xaalka sidan maaha ee waa sidan dadka sharciyada ka xareysanaysaan iska fiiriya war ma jirto fiiri waxa arkay dad la leeyahay iqaamaha ku xareynayna $600 keen ma jirto iqaamadu marka xareysanayso waa $150 kama badna warqad caafimaad aan ku soo saarayo ku leeyahay isbitaal aan kaga keenay warqad caafimaad warqad fiigu ku soo qoraya aqaadanaysa waa geenaysa gooja rajactiya qaadanaysa adeer marka waxa laga rabaa waxyaalahaas oo dhan inaad iska fiiri sida loo baahan isbitaal u timid isbitaalkaad u timid tag warqad ka soo qaada xaqad u leedahay in 600 laga qaato lagu yiraahdo iqaamaha ku soo saaraya waa beenteeda waa been way waxba kama jiraan ka feejigno iska ilaali kuwaas iyo kuwa lamidka ah marka runta u sheeg fiiri iqaamada in lagu dalbo hadda luqad English ka taqaan hadda Carabiga taqaano hadda Russian hadda Faransiiska taqaan online ka dalban kartaa kuma xirna inuu qof ku dalbo laakiin waa u baahan tahay qof experience leh oo waxaan kala yaqaan oo waxaan ku dalbi kara tag xafiiska fiiri lacagta canshuurta laga haro dawladda ku ka rabto dokumentigu ku qoran yahay online waa arkaysaa lacagta ku qoran waa bixinaysaa insurance-ga passport-kaaga markaa dhibto da'daada ku xirantaa waa arkaysaa hadduu laakiin ku yiraahdo $600 bixi wax $150 waa dhacantahay marka waxyaalahaas oo kale yaa lagu qaldin dad waxa arkaysaa waxay ku leeyihiin jaamacadahan ka soo baxnay iqaamad ma dalbatay ha meeqa laga qaad 600 warsa laga qaad waxa soo baratay waxaasoo dhan marka ka feejigno iska ilaali arimaha guri gadashada dad badan jiro family badan guriga gatay oo guryahooda si fashari amare fadlan guriga intaadan gadan lawyer qabso guriga laga hubiyo deema lagu leeyahay waa mid intaadan goob ganacsi furan oo aan dukaanka iska kireysan ama maqaayadan aadan kireysan lawyer qabso ganacsigan dad ma iska leh lacag ma lagu leeyahay iska hubi meel lacag lagu leeyahay kireysanaysa waa laga kireynaa waa lagu qarjinaya ninkii lacagtu ka qaadanaya waa tagaya bari ka maalin dawladda imaanayso waa la fiirin guriga lacag lagu leeyahay lacagta adag kugu qoran bixi daday ku dhacday
hooyooyin fara badan waddanka business ka sameeyey, qaar Canada ka yimid, qaar London ka yimid, aan goobjoog u ahayn, meelo badan ay saas qaateen, lacaga lagu yeeshay, qofkii hore lacag ku lahaa waa loo yimid dowladda hoose, canshuurta marka la gaaro xilliga guriga intaasoo lacaga lagu leeyahay, dukaanka lacagta dhan bixi, qoorta la isku galay, marka dambe waxaa la yidhi waddanka ka baxa, lacagtiin way ka dhimatay, faa'iidina ma hayso. kadib marka dadkii marka waa dhaleeceynayna, marka waxaa leenahay Turkiga saan la yeelay, dadka Turkiga dad xun waa isaan, waddan walba system uu leeyahay, systemka raac, lawyer qabso, la kulan, xisaabiye qabso, dalbo, sharcigaaga saas u meel mar. ganacsiyada kale dadka kaaga soo horay magaalada ee business ka sameeyay ee businesskooda aflaxay inaa wareysato, isku day isla weynida daa u tag wareyso, businessana waa inaa furto saa wadadee maraadhe weydii caadi u wareyso. marka dadka inaad wareysato xaq waa ku aflaxaysaa. lawyerka qabso, lawyerka markaa qabsato fiiri, dukaana rabta ama dukaan waxaa rabtaa goob ganacsi inaa furto, lawyerka waa soo wadaysaa, dadka wax ka kiraysan ayaga istusaysaa, bis ayaga wada hadlaaya. lawyerka isagaa ka keenaya meesha inay sax tahay, wuxuu ku leeyahay sax waaye, meesha waa kiraysan kartaa, meesha wuxuu ku leeyahay qalad waaye, ha kiraysan, iska ilaali, runta kuu sheegaya. laakiin waa soconaya keligeyga, afar igu beelaan aan kaxaysanaya, meelaan tegaya, business meeqa waa kirada furaheeda waa $100,000, 100,000 bixinaya, kirada waa waa 3,000 waa bixinaya, dhig meeshii maqaayadan ka dhigaya. 3 bilood marka ku dowladda hoose timid meesha waa la jekin garaynaya, marka la hubiyo waxa la leeyahay meesha lacag lagu lahaa ninka hore meesha. war meel hore qof u kireystay hadaa kireysato waa dembi, meel qof kireystay kaama siin karayn karo, sharciga waddankan waa khilaafaysaa, sharciga khilaafaysaa. marka meelaha noocaas oo kale iyo meelaha businesska ah iska ilaali. aadan ugu amaanayna Soomaalida waddankan business badan ay sameysay, Istanbul maqaayado badan, xafiisyo badan, isbitaallo, meelo kala gedisnay sameysay, guula waxyaalo badan, waddanka sumcad sii kordhaysa. laakiin dhanka kale khilaaf badan jiro oo sharciyada la khilaafayo, dhudhuumasho ma soconayso. wixii dhudhuumasho ah iyo wixii inaad sharciga khilaafta ah, taasi ha ku noqoto meelo kale ha ku noqoto, ama waddankii iyo meelo lamid ah, ma wanaagsana. system ajir, systemka mar hay'ada la sameeyay, hay'adaha raac, lawyer la sameeyay mar, notary la sameeyay mar, waxyaalo badan sameey. qofaa waxaa arkaysaa waxyaalaha kale cajiibka, waxaa arkaysaa qofaa wuxuu ku leeyahay business aan rabaa inaan sameeyo, hoolan wadaa, share aan noqonaynaa, lacag waxaa keentaa 50,000 keen, 50,000 laga qaadaya qofkii, hebel 50,000 keen, 50,000 keen waa lagala goynaya. ninkii waraadinaya marka, ninkii hadduu helo xitaa ma dacweyn karo, sharci ma haysto waddankan. hebel lacagan kuleeya codkiisa waa keenaya, ma shaqayso. waxaa la sameeyey notarka tag, qofka markaad wax u dhiibanayso notarka la qorta, beri ka maalin waa dacweysan kartaa, lacagtaadan xoogaa looga qaadaya. laakiin af Soomaali iyo codaan ka haya iyo qoraalan ka haya, sheekooyinkaasi ma soconayaan. notarka tag, haddaad qof share la galayso, notarka ku heshiya, businesskiina meeshaas yani ku wada xaajooda. arrimaha kale oo la yaab kale waxaa ka mid ah ardayda waxbarashada loo soo dirayo ee la keenayo waddankan boqolaalka gaaraya, la leeyahay ardayaan soo direynaa waddankan aan keenaynaa, waxay baranayaan, agencieska ay sameeyaan, waa fiicantiin. ardayd in waxbarasho loo soo diro ay faa'iidaystaan wax fiican, laakiin ha isku qasina qof aan dal waxbarasho u socon inaad lacag laga qaado, lacag badan aad ka qaadataan, aad soo dirtaan isagoo waxbarasho u yimid, beri ka maalin uu baxo taariibo, dhibaato ka imaanaysa. waxay galaafanaysaa kuwii kale ee soo socday ee waddankan imaan lahaa, ee waxbarashada saxa u socon lahaa, in rejecta la sii loo diido. wayna dhacday, dad badanaa safaaradda ay u diiday in waxbarasho ay ku yimaadaan. imtixaanaada la sameeyaa, waxyaalo badanaa la sameeyaa, taas dhibaataa ka taagna. marka arday sax ah oo waxbarasho soo aadaysa oo jaamacadihii dhiganaya soo dira. weliba ardayda waxbarata inta badan oo waxbarashada daacadda ay ka tahay, oo si rasmi wax u baranaya, oo wuxuu ku mitidaya awa ardayga marka gobolka loo diro. arday waxbarasho usoo dirso gobolna geey, Istanbul iyo Ankara iyo magaalooyinka waaweyn way jiraan arday wanaagsan, laakiin badankoodii ma aha. kuwa gobolka ma helayaan activity dhalinyaradan faraha badan magaalooyinka waaweyn joogaan, ma helayaan. ninka goboloo jooga xilli hore la kala hooyanaya, yoortadiisa meeshiisu iska seexanaya, nabadgeli. waxbarashiisa ardaygaas wuxuu ku soo baxayaa 4 sano kadib arday toosan noqonaya. wayna jiraan arday badan la arkay ku aflaxday waxbarashadooda. taasaa marka aan rabnaa marka inaan xooga saarno dhanka waxbarashada naftirkeeda.
arrimaha caafimaadka problem weyn aan ka taagnaa bari dhaweyd oo la dhahayay dadka lagu dhacaa wadanka dada la dhibaateeya war isbitaalka hadduu wax kaa dhaco dacwey dokumentiyada la tag lawyer qabso isbitaalka dacwey qofka wax kaa qaata isbitaalka ku geeyay naftirkiisa dacwey sharciya wadanka jira af Soomaali ma soconayso isbitaal hebel dadka lagu dhacaa meel hebel qof ay dhacay aniga ma soconayso isbitaal aad tagtay waa sharciyeysan isbitaalkan lacaga laga qaado canshuura dawladda ka qaada qalad yar hadii lagu arko albaabada la soo dhufana isbitaalka haduu dambi ka galo ama lacag xad dhaaf ah oo ka qaato dokumentiga haysata lawyer qabso waa dacweyn kartaa dacwey isbitaalka dad badan isbitaalada dacwey xaqooda way ka dhacsadeen laakiin hadal maala yacni la soo istaagin meel oo la leeyahay Turkiga dad lagu dhacaa saan way of course dadka qaar waa la dhacaa yaa dhaco hebel la dhaco aniga markaan ahay reer hebel markaan ahay Turkiga markaan soo aaday qof reerkiga raasanaya markaan raasado asaa iqalay isbitaalku tagay oo keenay lacaga bixinaysa receipt lagu ma siina bila receipt iska soo qaadanaysa waxaaga lacaga bixi bari kama waxa istaagaysa 10 kuna baxshay maxaa ku bixis aa receipt lay ma siin totally wax socohaya ma marka waxa la rabaa receipt inay haysato wax walba aad bixisa receipt-keeda inay haysato adduunka fiiri maxkamada wadanka ka jira sharciga ka jiro waxyaalo badan ay jiro qof haduu dambi ka galo dacweynaysa laakiin haddii noqoto wixii af Soomaali haddii noqoto waxaan ninkan ay dhacay isbitaalkaas lacaga laga soo dhacay sida taliyeema daaweyn war haddii operation kaaga la qalday xitaa waa dacweyn kartaa dacweeyo dad badan oo Soomaaliyeed dacwooday way dacweeyeen waa laga garbaxay xaqooda la siiyay ina dacwooto waa marka arinta kale aad ka murugada u leh waxa weeye bari dhaweyd waxaan ka hadlaynay gabar Soomaaliyeed oo aan idin dhahay Facebook inaan soo dhigay xaaladeeda riskiga ku jirta koomay ku jirtaa maxaa ku dhacay Soomaaliya laga soo diraya qofka xanuunsan qofkii soo raaci lahaana lama soo raacinayo fiisaha qofka laga soo iibsanaya elboorka marka la keeno laga dhumanaya qofkii xanuunsana gabadhan kaligeeda joogto magaalada cid u joogto male isbitaal iska dhaxtaala qof anaga caawina iyo Xasan Allah khayr Allah si Xasan arday halkan wax ku bartay ayaa caawiya gabdho badan oo Soomaaliyeed oo caawiyeen wala saxda qofkii war qofka la socday oo bukaankan xanuunsan qof familkiisa soo raaci la soo dir Turkiga ha yimaado isbitaalka kala seexato ha ka soo gadan fiisaha bil calik ha ka soo iibsan $3,000 waxay tahay male qofka dhibaatada uu la kulmaya ka badan isbitaalka elboorka lagaga dhumanaya elboorka marka lagaga dhunto qofka meel uu aadama yaqaan waa xanuunsan yahay waa rafaadsan yahay ajnabiga ka kala cararaya waa qof dhibaataysan qof caawinaysa meel afka aadima yaqaan qofkaad ku soo dirtay oo fiisaha aad ka soo iibsatay kaligiisa meesha inuu ka dhunto ayuu qofka meesha ugu tagay qofkii la soo qaado waxa la keenaya isbitaalka marka la keeno markaas qeeldaan loo sameeynaa wax u haysta male gabadhan taasa ku dhacda gabar maskiina hooyo aan balahayn laba carruur Soomaali u joogta qofkii soo raaci lahaa fiisiya laga soo iibso kaligeeda la soo diray maanta waa kana yani waxa qaatire dhibaatada naga haysata iyo qofkii maxaan ku iradaa la seexan lahaa problem weyn naga haysta heer waxay gaartay gabadhii ay baaba'do isbedesho koomo nolol igeri u dhaxaysa xanuuno fara badan ayaa laga sheegay ilaahay soo badbaadi marka waxa codsanaya eedan naftirkeeda inaad u soo duceysana rajeynay marka qofka xanuunsan oo soo baxaya oo Soomaaliya ka soo baxaya ee xanuunsan wadankan soo aadaya fadlan ilaahay laga boqo qofka familkiisa soo raaciya familkiisa soo raacay gabar xanuunsan hadii odan leedahay odageeda soo raaco wiil haduu yahay walaashiisa soo raacdo gabar hadii walaalkeeda soo raaco ama walaashiisa soo raacdo ee qof kale lacag ha ka iibsan bil calik dhibaato ka imaanaysa dhibaato weyn ka taagan heer la gaaro ee dhahan yaa kam qofkan aawi qofkiisa ayaa dhacday qof kaligiisa isbitaal yaalo oo ku geeriyoodo maalmo kadib la soo sheegay la yiraahdo Soomaali laga soo lagu yiraahdo qof xagga nooga dhintay ka wardoon marka tagtidna qof la jooga male arintaasna safaaraddu Soomaaliya iyo xafiiska fiisooyinka baxsha inay ka feejignaadaan ee la socdaan waa waajib waay ad inay يعني أي إنها يكون هاي قف كيسو سينايا بروبلم كاسنا وحو كسعودا agencies ka dadka fiisooyin ku xareey ayaga waxa kala farsameeya farsamada noocaas oo kala ah marka waxa la rabaa in la qabto loo baahan
cisbitaalada war waddanka dad badan oo waddanka wax looga qaban karinaa jiro oo dhibaataysan xanuunsan hadduu qofka aad tirahdid isbitaal digfir wax loogama qaban kara haddaad tirahdid aad dhahdid adiga fadlan warqadda caafimaadka oo yani waddanka wax looga qaban kara ha ku dhibina sii soo sii qofka asagoo mayd ah oo tacbaan ah oo wax aan laga qaban karin halkan keenaysa last minute muddo kadibna isbitaalka ku dhimanaya ha ku dhibin qofka muwaadin waa qiimo leeyahay waddankiisuu joogaa haddaad aragtaan ama digfir hospital ama isbitaalka kale ee Yardameeli qof xanuunsan oo waddanka wax looga qaban karin fadlan haddaad aragtaan oo aad xaqiijiseen u qor warqadda ah in dalka wax looga qaban karin fiisaha loo fududeeyo u soo qor dokumentigiis intiisa kalena ha soo dhamaystirto ee qofka yaa la cadaadin please yaa la dhibin dadka aad u dhiban yihiin waxaan maala yacni ahayn oo maxaan ku yiraahdaa lacag yar ah wax laga raadinaya waxaa maqlayay $500 iyo $1,000 iyo wax la mid ah wax laga raadinaya qofka marka bukaanada waddankeena ku dhiban in wax laga raadi xal loo helo waa very important heshiisyo badanaa jiray oo la rabay dadka Soomaaliyeed in looga faa'iideeyo nasiib darro oo wasaaradihii hore caafimaadka wasiiradii isbedelayay soo saxiixay oo bishii ahayd 250 qof oo Soomaali ah in qaab lacag la'aan ah loo daaweeyo waxaa maqlayay heshiiska in dib loo soo cusboonaysiiyay waxaana nasiib darro ah dadkaasi heshiiskaas la soo cusboonaysiiyay oo la rabay muwaadiniinta Soomaaliyeed caafimaadkooda isbitaalkooda meesha degi lahaayeen diyaaradooda inay firiita ilaa iyo hadda ma arkin hal qof oo muwaadin Soomaaliyeed oo yani heshiiskaas lagu keenay ma heshiiskaas ma waxa loo saxiixay caruurta wasiirada loo saxiixay mise waxa loo saxiixay dadka kale xanuunsan oo dawladda ku jira ayaa loo saxiixay maya war heshiiskaas marka la saxiixay waxa ku jirtay qofka muwaadiniinta Soomaaliyeed ku jirtay heshiiskaasna dib loo soo cusboonaysiiyay processkiisna waxa weeye qofka inuu tago wasaaradda caafimaadka iska diiwaan geliyo arrimaha dibadda tago kadibna safaaradda loo gudbiyo cala tool qofkaas in halka la keeno 250 ruux sanad walba la keeno heshiisan sano soconaya dadkan faa'iido weyn u tahay please dadkan faa'iido weyn u tahay yaan dadka dhiigooda la cabin yaa la banaysan dadka looga faa'iideeyay heshiiskaasna wuu jiraa wuuna dhaqan galay waa diban loo saxiixay waa la socdaa marka heshiiskaas waxaan rabnaa marka inaad meel marisaan oo dadka Soomaaliyeed looga faa'iideeyo ayaa marka aad iyo aad muhiim u ah waxyaalahan kale maala yacniga ahna oo dadkan isla dhex wareegayana waxaa la rabaa ayada naftirkeeda in laga feejignaado aad muhiim u tahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaaladan ku nool Turkiga ku nool ama dalkan Turkiga ku nool ha noqoto Istanbul hadday noqoto Ankara dhaqanka waa muhiim dhaqanka waa very important waa wax muhiim ah way dhaqanka Soomaalida iyo diinta waa isku dhex jiraan way jalbaabka ama xijaabkaaga haddaad tuurto diinta yaa dhinac ka khilaaftay dhaqanka la qaadan ha fiirin gabadhan kala Turkida ah si u labisan tahay dhaqankeeda qaadan ayada al raba dhaqankaaga inay qaadato ee adiga kaaga inaad u hibayst ayada ma kaaga ka tagta kaaga siisama wiil iyo gabar aan la hadlaya arintaasna waa zaid ay noqoto way badatay marka taana naftirkeeda inaan ayada naftirkeeda waa muhiim waa very important waa maqaayadaha goobaha ganacsiga waddanka ku yaal waxaan leeyahay fadlan dhalinyarada magaalada degan shaqada siiya shaqooyinka inaad siisaan ama shaqada aad u ogolaataan waa xaq weeye shaqada siiya shaqooyinka u ogolaada dadka kale idinko ay sharciyeeta dad kale inaad shaqaaleysiisaan oo Turkiya laakiin 2 iyo 3 kaga dara meesha jaanis ka soo baxaya dhalinyarada in looga faa'iideeyo waa muhiim waxaan arkay su'aal iga soo weydiiyay maxaan ku yiraahdaa faamilo fara badan dugsiyada Quraanka ka waran yiraahdeen dalka Turkiga dugsi Quraan ma leeyahay dugsi Quraan waa leeyahay laakiin sida Soomaaliya iyo Kenya iyo Masar oo kale maaha Quraanka macallimiin badan iyo dugsiyo badan waddanka waa laga furay laakiin joogta ah sida Soomaaliya oo kale Quraanka halkan loogama barto cunuga halkan Quraanka ku dhigta iyo kan Soomaaliya ku dhigta kan Soomaaliya 100% active ah wax badan la baranay marka ugu horeysa waxaan tala ahaan ku soo jeedin lahaa faamilada caruurta dalkii geeya ama magaalooyinka Soomaaliya haddii qofka Muqdisho uu ka baqayo
garowe gey hargeysa gey boorama gey meelahaas gey cunuga quraanka ku soo barto quraanka markuu xaafid ku soo noqdana turkiga keen iskuulaadka turkida geyso oo iska lacag la'aan cunuga dhaqanka lagu baraya iyo hab dhaqanka bulshada stage fiican ku gaaraya saas ayadana inaad samaysaan faamilada iska soo guuray hal mar dig soo dhahayo oo dhahayo wixii Yurub aan ku haysan waa ka soo guurnay Turkiga rabnaa inaan soo degno oo ku wareereysaan fadlan odayga kaligiisa soo dir ha yimaado ha sahmiyo wadanka markuu sahmiyo macquul hadii kula noqoto go'aan gaar deg hadii macquul kula noqon weydana go'aan kale aan leedahay choice kale leedahay naga daaya sheekada reer guuraaga marba wadan loo soo guuraayo carruurtii waa waasheen jinya ku rideen cunugii waxa weey ingiriiska ka keenaysa turkiga keenaysa turkiga keenaysa masar ilmaha marba meel keenaysa taana waa laga fiicaya marka waxa la rabaa ilmaha naftirkooda inaad taasi aad ka dhistaan wixii diin ah waxa wanaagsan Soomaaliya ama wadamadaas kale inaad geysaan bari kama ama carruurta kale oo waxbarashada ku gaartay dugsiga hoose dhexe inaad turkiga ku iskuulaadkooda geysan kartaa aad u wanaagsan dhaqanka ku barayaan waxyaalo badan ay barayaan cunuga wuxuu ku noqonayaa cunug yani basically dhisan oo bulshada la dhaqmi karo ayuu cunuga markaasi ayuu noqonayaa taasi waa mid weeye arinta kale ugu muhiimsan waxay tahay maxaan ku yiraahdaa hab dhaqanka bulshada aan la noolaahay oo dhaqmayna maqaayadan tagayna waa qaylinayna waa la buuqaya waa la sheekeynaya maya xoogaa yar inaan yarayna loo baahan yahay taasi qaylada iyo buuqa waa yaraynayna si hoose u sheekeysanayna telefoonka markuu soo dhaco si aayar u hadlayna daqiiqis iyo tartiib telefoonka si isku mid lagu maqlaya si tartiib markaa hadalna ama nidaamka protocolka inay ilaalino oo banaanka inay u baxno telefoonka ku soo hadalna soo noqon tareenka markaa fuulaysi sidoo kale baska markaa raacaysi sidoo kale iyo wixii la mid ah arinta kale ee ku saabsan tagaasida la raacayo taxi uu ku wareejinaya badana hadda laakiin adresska aadan haysan uu ku dhibaya marka waxa wanaagsan guriga oo socoto qof Soomaali haduu joogo oo Turkiga yaqaan la hadal Turkiilaha taxiilaha ugu dib ha kula hadlo isla hadalsi labadooda taas si fudud lagu geenay ama waxa jira basas iyo wax la mid ah jiro kaarka qaado kaarka sameeyso marka sameeysatana sidaas waxa ku meel marsiinaysa gabar hadaa tahayna taxiga qaybta hore ka raacin taxi hadda Turkiga joogto oo dumar tahay taxiga qaybta hore ha ka raacin taxiga qaybta kuraasta dambe raac u fiirso gabdhaha wadanka u dhashay tagaasida qaybta hore kama raacaan dhaqan ahaana ma wanaagsan si kale ma wanaagsan marka taxiga qaybta dambe ka raac day muhiim tahay waa dad koox ku socotiin oo qaybta hore dambe ay buuxsanto gaariga hore waa raaci karta laakiin maadaama laba qof ama hal qof kaliya tahay hore ha fuulin micno kuma sameynayso inaad mobilka la soo baxdo aad snap iska duubto aad hore saaran ninka Turkiga darawalka aad ku aadiso wax micno ku sameynayso laakiin adiga waxay ka gudbinaysaa ka badan wax kala laga aaminaya adiga marka gabar hadaa tahay taxiga qaybta hore ka raacin raga waa caadi weeye waa raaci kara marka taa naftirkeeda ogow arimahaasi iyo arimo kale oo badan marka waxaan rajeynaynaa dadka Soomaaliyeed ee wadanka ku nool inay yani ay la socdaan xaalka dalka soo yahay wadankan wadan wax badan noo qabto waa anaga wadan aad noo gargaaray waa wadan aynu soo dhaweysteen waa dadkiisa marka inaan ku ciyaarno ma ina ilaalina loo baahan yahay dirtaan ina ilaalino systemka iyo wixii wadanka ilaalino iyo maxaan ku yiraahdaa hab dhaqanka bulshada dadkan fiir dadku waxay u maleeyaan Turkida inay yihiin cunsuriin yihiin waa laga yaabaa 2 iyo 3 oo nationalist ay yihiin ama nationalist yihiin ay cunsuriin yihiin laakiin badankooda dad wanaagsan waa markay hadlayaan xanaaqooda hadalka xanaaqa ah waa dhaqan weey hal mid laakiin ogow maalinta isfahantaan waa dad bini aadan ah weey waa bini aadan oo wax badan runtii aad ka fahmi kartid waa marka arimahaas idil oo dhan waa marka waa nooc kamid ah orientation oo aan dadka Soomaaliyeed ee wadankan rabo inay yimaadaan ama kuwa ku nool aan siinayo ma aha wax maala yaani life ka aniga badana ma soo gal laakiin issue muhiim ah dadka markay su'aalo badan soo weydiiyaan waxaan jeclahay in hal mar si guud ah aan u siiyo iyo wax igu soo noqdo marka arko inaan wixii hadda arinta marka la leeyahay maalmihii dhaweyd la dhahay maalmo ka hor iqaamadaha la isku diiday marka la dhahay questions badan ay yimid su'aalo badan la soo weydiiyay marka dadka marka
sidaan marka waa samayn karnaa hadda qofku inuu marka wixii halkaasi uu ka helo oo uu ka jaahil baxo aad ay wanaagsan tahay soomaalida marka wadankan waa dad wanaagsan dad isjecel dad yani isweeshada oo aad iyo aad runtii isugu heliya taa naftirkeedna inaan ayadana waa dad lagu ammaano way waxyaalaha cajiibka ah ee soomaalida lagu ammaano maxaa ka mid ah salaada masaajidada shanta xilli ayaga buuxa oo meel walbana waa laga sheegaa carabtiya sheegta turkida ku sheekaysata ajaanibtii kale ku sheekaysata ha noqoto afrikaan ha noqoto asian ha noqoto europeanka soomaalida dad salaada ilaaliya way masaajidkan isha baydhabo haddaad tagtay ama masaajidada kale markaa tagtay dadka ugu badan ee ku tukada waa soomaali waa taasna ilaaha mahad ku leh marka sumcadaasaan leenaha marka laakiin inaan ilaalino marka arrimaheeni kale anaga noo gaarka privateka waa muhiim waa arrinta safaaradda dhaliilo fara badan aa imaaday oo la leeyahay safaaraddu soomaalida way dhibaateysaa waa sidaan baaritaan fara badan oo aan safiirka naftirkiisa aan su-aalo badan aan ka weydiiyey arrimahaas oo idil waxyaalaha laga cabanaya maxaa ka mid ah safaaradda qofka documentiga ka dhacaya markuu documentiga ka dhaco ama wuxuu baasaboorka cusboonaysiin u baahnanaya markuu u baahnaado in yani documentiga uu update ku sameeyo ama baasaboor dalbado ama waxaa ka dhumaya baasaboorkii wuxuu leeyahay baasaboor kale safaaradda uu ii diiday inay ii cusboonaysiiso safaaraddu waxaa laga rabaa qofka markuu baasaboor ka dhumo safaaradda waxay rabtaa qofka waxay ka rabtaa inay ka hesho warqad boolis ah oo cadaynaysa qof oo booliska soo qoray oo qofkan baasaboorka ka dhumay ah safaaradda in loo geeyo safaaradda markaas baasaboor kale ku dalbaysa kii hore kansalaysaa taa adaa ku qaldan muwaadin taa naftirkeeda iska fiiri safaaradda dhowr jeer kala hadalnay in ay arrintaasi ee bulshada cabanaysa ay wax ka bedesho taana way jirtaa marka in qofka markuu wax ka dhumay inuu wixiisa uu inform garayo booliska u sheego marka lagugu soo xujeeyo appointment inaad samaysatid ama baasaboor ilmaha inaad gashid inaad online ah jiro nageeyahaas wax badan oo saamaxay qofka duusan garanin karin marka dadka kale inuu la kaashado online-ka ah wixii dhan online ku bixinaya markuu ku bixiyo appointmentkiisa online on time ku tagaysaa magaca albaabka yaal waa gelaysaa safaaradda sidaasaan ku samaynaa anagoo dhan waa marnaa systemkaasi kuwa shaqaalaha safaaradda naftirkooda ayaga naftirkooda way maraan taasna waa waajib ayadana safaaradda waxyaalaha lagu dhaliilo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dadka ma soo dhex gashaa la yidhi safaaradda gobolada ma booqato soomaalida ma tagto taas run weeye safaaradda dadka ma soo dhex gasho meelaha ma tagto laakiin safiirka howlo diplomatic oo missionka wadankan uu joogo ayuu busy ku yahay marka wuxuu ballan qaaday inuu dadkii soo dhex galayo uu tagayo sida uu ankara uu ka sameeyey burso uu ka tagay oo arday fara badan oo barnaamijyo kala qayb galay sports uu kala qayb galay taa naftirkiisa uu ku ammaanan yahay marka waxyaalaha kaloo dhiman oo dhan iyo dadkan waxaa waaye waxyaala soomaalida la rabo in laga jaahil bixiyo oo yani isaga shakhsiyan inuu u sameeyo taasina waa waajib oo aan ka rabno safaaradda iyo dadka soomaaliyeed inay isla shaqeeyaan waa muhiim weeye dad badanaa wadankan ku geeriyooda isbitaalada ku dhinta communityga aaday u mahadsan yihiin oo jaaliyadda si wanaagsan shaqooyin fiican ay ka qabteen oo dad badan ay aasaan dad ayagoo lacag lagu leeyahay oo 30,000 liiro ku dhawaad 10,000 dollar lagu leeyahay ayay mararka qaar warqad ay qoraana looga cafiyaa ayada naftirkeeda taasna runtii aad iyo aad ayaan ugu ammaanaynaa communityga wadankan iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed arrinta ugu dambaysa corona jiray dadka dhan waa xayirnaayeen samara lagu jiray dadka oo dhan waxay ku jireen guryaha caruurtii kulli way xayirnaayeen guryaha lagu wada jiray samarkii waa laga baxay coronihii iyo wixii dadka waa la fasax wadanka open way caruura dad haysta family caruur haysta jira cunugii iskuulka ka keenaysa guriga uu jooga ama inta corona dhan guriga ku isaga jiray cunuga fursad sii ilmaha fursad sii xirxirnaanta iska daaya familkan waa nooca no looma baahna familada meel wada degan isku keena ilmaha marka isku keentaan caruurta isku keentaan xadiiqooyin waaweynaa jiro oo caruurta lagu ciyaarsiiyo oo dabaal leh wax walba leh badiyaa gey kartaa ilmaha xilli kuleel lagu jira guriga ha ku haynin soo saar caruurta raaca iswada raaca idinkoo dhan familiadiina badda geeya gardeniska geeya aquapark geeya ilmaha caruurta ha nafisaan
ilmaha guriga ku haynin ha canaaneen ilmaha naftirkooda maskaxiyan ma korayaan caruurta marka waxa la rabaa caruurta in la dhisaal rabaa niyadooda maskaxdooda la dhisaal rabaa marka maalmaha fasaxa ah ilmaha isku keenay cunuga guri adiga waa soo libisanaysaa hooyada way soo libisanay magaalada tag cunuga guriga lagu hayna odayga uu baxaya ama ma joog wadanka uu ka shaqeynaya caruurta guriga la saga haya lama rabo caruurta marka waxa la rabaa familka isku dhowba in ilmaha isku keenaan xadiiqooyinka ay geeyaan meesha cunno ku karsadaan lagu wada sheeko ilmaha ay isdhexgalaan caruurta Soomaaliyeed isfahmaan ay sheekaystaan wax badan inay sameeyaan oo ay nafisaan la rabaa ma arkin caruurta Turkida wadankan habeenku dhan garden la jira ayagoo diris ahaan isku la socdaan anaga marka maxaa noo diiday ilmihii familada wadankan soo degay Ankara degaa ama Turkiga ama guud ahaan magaalooyinka kala gedisan dalkan caruurta guriga ku hayaan lama rabo cunuga ciyaarsi waqti la qaado soo wad dabaal gay meelaha gay samarka kaxeyd magaalooyinka la gay waqti la qaado ilmaha waqti time gili la orod balooni la ciyaar badda la gal ilmaha fursad laakiin guriga ku heynaysaa habeenkii waa canaanaysaa wax yar oo meel wuxuu qaaday uu qaldaya waa ku qeylinaysaa no lama rabo fiiri waxaas oo dhan cunugaas hadhow markuu weynaado maskaxiin xitaa si uu noqonaya cunugu ciiloonaya markuu banaanka arko cunug kale oo Turki ah oo hooyadiis wado oo la soo ciyaarsiina adina guriga daaqada markuu ka arko meel kale markuu ka arko cunugu ciiloonaya ma garad marka cunugu marka waxa la rabaa inaad marka waqti sida loo baahan yahay hooyo ama aabo hadda ilmo wadanka ay ku joogan waqti ninka siyaasiga ama wasiirka ama xildhibaanka ama caruurta halka u degan waa iska maqanta wadanka Soomaaliya iska jirta waxa qasaysa caruurtaada kama horeysid so wadanka ku soo noqo fursad waxa laga yaabaa fiiri hadda waxaan aaminsanahay xildhibaano fara badan oo xildhibaanimadii waayay ama sanatarada waayay wasiiro badan oo wasiirnimadii waayay waxay fursad u heli doonaan ilmahoodii in dib ugu soo laabtaan laakiin ilmaha hadda u soo noqon wasiir ama xildhibaan ama senator waa qasaarta caruurta u soo noqo fursad ay kali lama hadlay waxaan kaloo la hadlaya kuwa kale familada kale ama aabayaasha kale ama hooyooyinka kale kuwa deriska gaar ahaan isku keenay ilmaha marka hal isku keeno hala sheekaysto fursad ilmaha fursad chance hala siiyo fiiri waxa jirto caruurta ilmahena markay qalad naga sameeyaan maxaa sameeynaa waa ku qelinaa wariya maxaa u sameysay hayay seexo waraabaha soo socod lama rabo ilmaha ka cabsi gelin si naseexay si degan aayara tartiiba maxaa waxa u sameysay si aayara marka cunuga loo sheekaysto taasna ilmaha waxaan rajeynayaa in fursad la siiyo rajeynaya fursad wanaagsan in la siiyo rajeynaya waan ognahay wasiiro badan xildhibaano badan madaxweynayaal badan ayaa wadankan guryo ka gatay 250,000 500,000 guri laga bixiyay baasaboor Turkiya la qaatay ilmahoodii baasaboor Turkiya qaateen ilmaha wadankan ku joogan school high class ku dhigtan sanadkii waxa ka shubtaa maxaan ku iraahdaa 5,000 ka shubtaa cunugii kuwii kale wadankay joogan يعني وحي هذا قصد سا كواذا أو فكريسد كوا ودنك كنول إنها كفكرة مهمة وحاسو طن وإحنا آمن سنة وإحنا معنا يعني إصلاح حسابته ما ينادونا مرلو مركي نقطة لكن لو بقول يكونتم كون أما سدح بقول يكونتم كون أجوري أم شن بقول يكونتم كون لو أبارمنت لو أبارمنت أكو يبستي وباسبور تركي قاعدتي أو عروض هذا ولا قاعدين نعرف يعني يكونوا لهين بشي أو صوتوريسو لحكم ممكن أوصل تورس كوي واحد لقى قاعدة هنا اللي بتيسين بروبلم بدنا كاجي معنا مركو حلو باهي هاي مرحلة ودن كوي كجرو عروض الصومالية ودن يكونوا ليين ودن مركا وحاصل إنك فكرة اللو باهي هاي عروضنا وقت العلاقات تايم العلاقات الرجينية ضدك الصومالية ودن كان كونوا لنا سمعة سيدا ودن كل دينا سمعة دينا إلى شتان هبيني دي برا كان الوضع أفرايو أو محن كور هذا إن شيء شد يوحيلان لميتك ومالا يعني جاه أتكون أفريسان إسكداية وح فائدة لهذا ماله وحيالا لا ياب كلا وحكم إذا فيريا قف تركيا شغو عرّة شغو أسعودها قف صوماليا هل كانوا حيسا قدوبة يا تيك توك يوحكالي قف كي ودن كولا شيابا يقولي هاي قف كا ما شغينا يا مي يقولي قبل بدنا صوماليات أو شقي سوحي سيس إنك عن هبينكي 9 إيمانا أو شقي استاجرو أي نتركودنا آد وبقادنا قبل بدن يويل بدن أو شقيستا أو هير وحبرشيدو ميل وناكسن غاري أو شقيستا جيرو sidoo kale ayagana runtii ammaan ay mudeen qaar maqaayadaha ka shaqeeya jir maqaayada ka shaqeeyso maqaayad in laga shaqeeyo ay maaha fiiri
adoo maqaayadaha turkiga fadhiya qof wiil turki ah oo kabalyeeri ah markuu shaax ku keeno ama gabar shaax ku keento su'aal weydii wax ma barataa ku dheh jawaabtu ku siinayo iisoo sheeg waa labo inuu ku yiraahdo wax waan bartaa waa baajan diyaar gareey ama masteran diyaar gareey ku leeyahay kabalyeerina waaya marka shaqada ceeb maaha waxaa ceeb ah shanta galabnimo inaad soo kacdo oo habeenkiina dhan aad dhafarto oo 6 in the morning inaad seexatid 6 subaxnimo seexanay ceebta kaaga sii daran waxay tahay adoo intaad soo jeedin salaadihii ma tukanaysid waana dhafartay salaadiina ma tukanaysid taana naftirkeeda waxaa maskaxda inay shaqaysaa loo baahan yahay naftirkeeda waa very important shaqadu marka ceeb maaha qofku marka inuu shaqaysto waa wax wanaagsan waa arrimahaas oo idil iyo waxyaalaha aan kasoo sheekeeyo dhan marka dadka aan daawan hadda nala socon inay dib u daawan doonaan aan rajeynaya wixii life-kan badana ma soo galo laakiin issue weyn markuu jiro wax markay ay maskaxda ka weynaadaan oo su'aalo badan ay ka yimaadaan waxaan jeclaa wixii inaan dadka markaasi aan ka jaahil bixiyo marka intaasaan kusoo koobaya fariimaha marka sii gaarsiiya dadka intiisa kale sharciyada sidii loo dalbado dadkan Soomaaliyeed ee lagu amrayna in wadanka 30 cisho ay ka baxaana inay tusaale u noqoto dadka kale ee businesska kule work permit-ka number 1 waaye tan lagu qabsadana waa intaas work permit-ka inay dalbadaan work permit-kaaga haddaad dalbato waa caadi laakiin hadda businesskaagu uu cusub yahay sanad kadib work permit-ka waajibu kugu noqonaya laakiin sanadkaasi waa iska shaqaysan kartaa adoo waa sharciye kartaa laakiin laazim waa work permit-ka marka inaa xooga saartiin ayaan rajeynayaa dalka marka la joogana qabyaalada waa qurun weeye wadanka kama shaqayso reer hebel ah iyo maamul hebel aan ka imid no Soomaaliya lagu ictiraafsan yahay marka taan ina ka fiijignaano arinta ugu muhiimsan ay ilaa waxay tahay pointiga hadda warqada ka arkay dhalinyarada qamriga isticmaalaysa oo habeenkii magaalada ku dhacaysa soona ahaan isha baydhabo inay qamri soo cabaan ku dhacaya iyo dhalinyaradan kale oo meelaha ku dhacayo wadanka sharci waxa ka yaala qofka markuu cabsan yahay lama taabto laakiin community-ga dee dacweeyaan 10 days gudahooda qofkaas waa la musaafurnaya adoo qamri cabayo oo booliiska ay ku arkaan ama community-ga dee isku raacaan in yani dhibaato ah ku noqonaysid sumcadda wadankan Soomaalida kale dhibaato u keenayso 10 qofood ama community-ga leh hadday isku raacaan oo warqad laga qoro booliiska way ku musaafurnayaan marka waxa wanaagsan dadka kale qamriga waa cabaan hadaadan qamriga deynaynin fadlan si meelaha kale oo meelo gaar ah gurigaaga ama meelaha kale ku cab kuwa kale way jiraan ayagana turkooda oo maxaan ku yiraahdaa meelaha inay fadhiistaan oo maala yacni ku haya jira maala yacni inta samay lahayd oo meelaha iska fadhi lahayd fursada haysata ka faa'iideyso wax baro luqadda baro farsamada gacanta baro halkaanka waxaas dhan waa free waa iska baro farsamooyinka gacanta meel lagu bartaa jiray ajnabi kale dhan way dhigtaan iska baro kursiga afariisanaysa shaaca dalbanaysa dad xamanaysa waxa la mid ah waxaas dhan waxa weeye inaan ka feejinaano dadka ugu badan ee ajnabi ee maalmaha sabti axad marka laga tago way maalmaha kale dhan ee maqaayadaha buuxo waa Soomaali waay laano wax ma qabano inteena badan sabti axad laakiin wadanka fasaxa ka jiro ajnabiga turkida ka badan ba wax meesha imaanay marka insha Allah marka waxaan rajeynayaa marka arrimahaas oo dhan inaad la socotaan waa nooc kamid ah rotation-ka way qofka marka Europe loo qaado ama Mareykan loo qaadayo waa la soo kacay hotel la soo dejiyaa wadanka sharcigiisa loo sharaxaa moogta marka saas lamid ah marka waajiba naga saaran muwaadiniinta Soomaaliyeed in orientation ayna siino marka xaq ayaa naga saaran waajiba naga saaran marka saaxiibayaal waxaan idin rajeynayaa inaad waanadan aad qaadataan wixii qalday waad iga raalaanaysaan wixii saxayna sida u qaadanaysaan dadka kale inaad gaarsiisaan inta ka horeysana waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.